casharkeena xigaa blood pressure cadaadiska dhiigga. Cadaadiska dhiigga waa awoodda cadaadiska dhiigga ee ku jirta halbowlaha iyadoo laga soo cadaadinayo gudaha loona soo cadaadinayo dibadda ayaa nuuxsiga laga maqlaa halbowlaha darbigiisa sare oo arteriga ah. macnaha wuxuu ka wadaa qofku markuu wadnaha zaa'id u garaacmayo oo dhiiggiis kacsan waxaa la jiray qofkan dhiiggiis 100 gaarmaan qofku markuu dhiiggiisa kacsan yahay jugta iyo baalka calaaya cadaadiska la soo saarayo jugtiisa waxaa ka dareemaysaa marka halbowlahaas gacanta u saartid aa ka dareemaysaa ama waaba arkaysaaba isagoo maqaarka soo dhaafa kor soo kacaya saasaan ku dareemaysaa. hore waxaan soo aragnay temperatureki, haddana waxaan ku jirnaa cadaadiska dhiigga. Cadaadiska dhiigga waxyaalaha lagu cabiro kana ka mid ah. marka kana intaa lagu xiraa, kana intaa la saaraa, wuxuu sheegaa marka garaaca wadnaha qaabkoo maraya, dhiigga kacsanaantiisa heerkoo maraya. meeshaan wuxuu kusoo qoraa qoraalka ama lambarka oo maraya. kana wuxuu la socdaa dhaqdhaqaaqa garaaca ama kacsanaanta dhiigga ayuu la socdaa. kana kuwaana waa la mid. kana sidoo kale iyadana waa nooc kale oo isaga la mid ah. saas macnaha saas loo bom gareeya, macnaha saas asuulka loogu qabaha waa la buush gareeya. macnaha meeshaan xoogaa ariga yara soo geli waa la buush gareeya. markaas wuxuu sheegaa dhiigga heerkooda, laakiinse labadaba kana casrisan soo kana casrisan. okay, waqtiga la cabiro cadaadiska dhiigga sida qaalibka ah BB-ga ama cadaadiska dhiigga waxaa laga cabiraa qofka qaangaarka ah, waxaana loo qaybiyaa 2 qaybood oo kala ah systolic iyo diastolic. waa labadan qayb. macnaha qaybtan iyo qaybtan waa systolic iyo diastolic. haddaba qofka caafimaadka qaba waxaa laga doonayaa caafimaadkiisa dhiigga inuu ahaado 120 ilaa 80. macnaha markuu degan yahay 120 ilaa 80 waa inuu dhaxeeyaa hoos ah, waana heerka ugu fiican. haddaba cadaadiska dhiigga wuxuu lagu cabiraa qalab loo yaqaano safai-manometer loo yaqaanaa. MBV gaara cadaadiska dhiigga oo kaca waxaa keeni kara cudurro kala ah cudurrada ku dhaca wadnaha
heerty disease aa loo yaqaanaa cudurrada ku dhaca wadnaha kacsanaanta dhiiggana way keenaan. Qodobka xiga cudurrada ku dhaca kelyaha renal disease. Kelyaha sidaan ognahay wuxuu kala saaraa wasakhda iyo waxyaalaha caafimaadka qaba, waxyaalaha nadiifka ah, wuxuuna filtareeyaa dhiigga, wuxuuna ka filtareeyaa wasakhda, wuxuuna filtareeyaa biyaha, wuxuuna u filtareeyaa qaab oo u kala soocayo kuwa jirka ku nagahayo oo nadiif ah iyo kuwa wasakh oo naqaaya kaadida. iyo xanaaqa iyo xanuunada xanaaq waxaa laga wadaa dhiig karka iyo xanuunada joogtada ah. Haddaba cadaadiska dhiigga marka uu sareeyo waxaa loo qaybiyaa hypertension, marka uu hooseeyana waxaa loo yaqaanaa hypotension. Markuu dhiigga degan yahay hypotension lahaa, markuu kacsan yana hypertension. qodobada xiga waa geli doonaa marka cashirkeena intaas ayuu ku egyahay insha Allah.